waxaan rabaa horta dadka hadlaya inuu yaqaano waxa uu ka hadlayo oo uu yahay qof u diyaarsan ama fahamsan oo wax fakera ka qaba waxa uu ka hadlayo ninka la iigu sheegay inuu yahay xildhibaan magaciisana la yidhaahdo hebelkaa xusul waxaan leeyahay inuusan garan na uusan fahamsanayn waxa uu saaka dhaliilayo iyo waxa uu ka hadlaya midna inuusan feker ka qabinba horta inuu isweydiiyaa ficnaan lahayd yuu matelaa ciddee matelaa shabaabku ma aha kuwa qoryaha wata keliya shabaabku institutionka soomaaliya ay ka mid yihiin waxaanu qabanaa iyagoo ciidan ah oo libisan oo uniform wataanu qabanay hadda ka hor asaga hadda waxaan u aqoonsanahay inuu yahay argagixiso cid kasta ee dhaliisha ee ka hor timaada howlgallada socda oo lagu sufeynaya cadowga soomaaliyeed ee cir iyo dhul diiday waxaan u aqoonsanahay inay yihiin shabaab hebelkaa xusulow waxaan kuu aqoonsanahay inaad tahay shabaab kumaanaan aqoonin adaa isu keen sheegay adaa saaka dadka iska caamo meediya isi soo dhigay kumaynaan aqoonin dowladda soomaaliya in shabaab institutionkii hay-addii sharci dejinta ee baarlamanka soomaaliya ay saaka ka soo dhex hadlaan dowladda soomaaliya lafteeda waxay ku tahay meel ka dhacay ku tahay hoos ha loo eegaan leeyahay hoos ha loo eego ninka guddoomiyaha baarlamanka ka ah baarlamanka soomaaliya baarlamaankii t f g aan ka soo wada mid ahay guddoomiye baarlamaan buu mar noo soo ah marna xildhibaan kuleegahan ahayn dadka uu xildhibaanka u yahay hoos ha u eego xagga hoose ha fiiriyo si dhaba ha u eego kama aha garasho xumo ninka saa ka hadlay hebelkaa xusul kama aha garasho la-aan kama aha waa argagixiso waa caddaynaynaa sababtu tahay meesha uu sheeganayo inuu ka soo jeedo ee uu matelayo 20 sano ku dhowaad shabaab baa haystaa weligiina maalin inta meediyaha yimaado muu cambaarayn hay-adda nisoo ka soo baxay markii hore ayuu ka mid ahaa baarlamanka markuu soo aadayay historigiisa waanu haynaa wuxuu ka sii shaqay jirayna waa garanaynaa caddaymaanu haynaa in uu yahay argagixiso in uu yahay al-shabaab caddaymaan ku haynaa hoos ha loo eego dowladdu hoos ha u eegto anugu kura yar oo waxa uu ka hadlaya aan garanayn oo yacni isu maldahaya ujeedooyin badan isku maldahaya inaan siduu u hadla ma doonayo laakiin waxaan leenahay dowladda soomaaliya al-shabaab hadday boolisi ka leedahay oo in lala dagaalamaa ay dhib tahay ay dhab tahay madaxweynaha soomaaliya asagaa dagaalka cilaamiyey prime ministerku asagaa dagaalka cilaamiyey institutionkayna ka dhex hadlayaane institutionka hoos ha u eego fallaar baa saaran dushiise fallaartaa ha la eego inaba hadduu wax garanayo saaka ma hadleen hadduu hadlayana wuxuu u hadli lahaa in uu hore u socdo oo meesha loo socdo aado oo cadowga sidii loo naafay lahaa uu ka hadlo tan kale dadka u aflagaadeeyey ee uu ku sheegay dad aan wax garanayn idima yaqaan waxa aad gashaanna ma garanayo waxa aad soo qabateenna ma garanayo kartida iyo geesinimada iyo dhiiranaantiinana ma garanayo waxaad aaminsan tihiinna ma aaminsana caqiidada iyo mabaadiida iyo diinta islaamka iyo sharafka iyo qiyamka a ku dagaalamaysaanna ma gara karee wax kalou aaminsan yahay annagaa xaal qaata idile xaal qaata annagaa idin garanayna annagaa idila howlgalnay annagaa idin hogaaminaynay baleeg wuxuu leeyahay lama hogaaminayo hoggaan ma leh
ورانجا هجاميني أفر بلاد بيش أفراد بعد ما نيسا أن دو كشري أن هجاميني دتكا أن عدو قلد قالني أن كسرني جيدا ما أنت عرفتين لك أن كسرني مسؤول ماله ليه بلاد أنا أقول ليه مسؤول ما وأصل محييه وهي إلتها هي ساكا واحد بدن باي علينيه سير الشباب ولا تعامل لها